kusoo dhawow channelkayga Nahyan Cooking waxaa ka heli kartaa cuntooyin kala duwan isqurxin iyo waxyaabo kala badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asxaabtayda kusoo dhawaada channelkayga Nahyan Cooking. ugu hore asxaabtayda haydinkayga mahad celinaya sida wanaagsan aad ii dhiirigelisaan comment-iyo quruxda badan ee soo qortaan. kama daali inaa idin mahad celiyo maalmahan waa la iwaayay faanteen. maalmaha waa la iwaayay one week ay ku dhowdahay channelkayga wax ma soo gelinin video ma soo gelinin geediyana galay ma faanteen waa guureynaa marka maxaa la dhahaa alaabtii kala xiraynay kala aruurinaynay marka zaida busy u ahay marka wali xataa ma guurin wali ma degin alaabtii la qaaday Nairobi u soconaa laakiin anaga wali joogno anaga wali bixin alaabtii waa la qaaday marka hada jika kala idinka soo sameynaya video soo maragtaan marka waxaan sameysanaynaa saliid asxaabteeda timaha saliid u sameysanaynaa saliid timaha bixiso aan sameysanaynaa inta waxaan ku haystaa saliid qumba inta ku soo shubtay saliid qumbaha oo diyaarsan waaye oo la miiro ani Mombasa jooga saliid la sameeyo waaye mid gasac ma ahan inta waxaan ku haystaa basashana aan ku karkarinaaya waa ila arki doontiin inta waxaan ku haystaa liintan waxaan u baahanahay liintan qolofteeda u baahanahay qolofta rabaa inaan ku daro waa ila arki doontiin insha Allah hadda basasha soo jarjaranaya liintana waa soo fiiqanaya waa isku soo laabanayna asxaabteeda soo jarjartay basasha inta saliidan ku haysta saliidan ku soo daraya basasha bismillah saliida basasha ku karkarinayna waxa timaha bixinayo waa basasha ku karkarinayna saliida liinta waa ku carfinaynaa bas basasha way shiiraysaa maahan saliida dii lagu karkariyo way uraysaa way shiiraysaa shiiray leedahay marka shiirtaas waxa ku baabi'inaynaa liinta qolofteeda caraf ay ka dhigaysaa catar haskaga darin asku day ina madaxaaga ama timahaaga catar marisid catarka timaha uma fiicno wuu jabinayaa timaha ka daadanaya marka catarka bedelkiisa liinta isticmaal catarka xitaa liina laga soo sameeyaa sida ogtihiinbo liin dhanaan ha ahaato liintan ha ahaato liin kasta ayuu nooc liin ah haysatid qolofteeda isticmaalaysaa marka cuntooyinka taa lagu darsadaa waa aragteen caraf ay ka dhigaysaa laakiin marka cunto ku darsanaysid qoloftan cad waa ina iska reebtaa baasha oo qudaarta lagu xoqo inta soo qaadatid asas ugu xoqaysaa qoloftan koro bisa ka qaadanaya kan ma ku daraysid qaraar oo kaaga dhigaya cuntada laakiin aan hadda cunto ma ku karinayo saliid madaxda marsanaya ku daraya Soomahan hatta kan waa isticmaalaya marka sidaas u ogaada sidaas ila socda waan ku soo daraya liintana hadaa rabtid marka karisid kadib saliid marka karkarisid kadib liinta inta jarjartid weel af weyn inta ku shubatid liinta kula dari kartaa kula xiri kartaa markaas carafta way ku milmaysaa faanteen laakiin aan hadda waan ku karkarinaya maadaama aan saliid karinayo xagaas dabka aadayna insha Allah asxaabtay saliid dabkan soo saaray dabka waa shiday ana soo karto xoogaa kadib aan isku soo laabanayna insha Allah asxaabtayda kan beetroot waaye waxaan ka sameeyraa afka waxa la marsanaya sameeysanayna lipstick ka sameeyraa beetrootka inta la xaqaysta vaseline tan iyo waxa isku daraya beetrootka hada beetrootka hal xabo weyn oo ahay waa kala jaray waa soo kala jaray jeexa rabaa inaan isticmaalo cadkana soo hoqonaya waa isku soo laabanayna asxaabtay saliida waa tan saanay u karaysaa basasha markay brown noqoto saliida basasha ay isku karkaraan iyo qolofta liinta si fiican ay isugu milmaan maxaa la dhahaa ka damin doonaa ila arki doonta insha Allah dabkana waa u gaabiyay inkastoo gaaskan uu zaid yahay midkan labada xaba isticmaalaya kukarka ani kukarkay waa la qaaday jiko cusub aan jooga sida arkaysaanba marka kukarka alaabta la raraya lagu daray markana aan isticmaalay yani dabkiisa zaid waaye laakiin waa u gaabiyay hadda soo karsamayso marka hadii kukarka kale aan isticmaalaysid dabka u gaabay insha Allah marka ka faa'iideysta hadda waxa aadaya waa isku soo laabanayna insha Allah
asxaabteyda jeexii waxaa kasii reebay intaana kasii reebay adi qiyaasta adi aa samaysanaysid la xiran tahay qasab maaha inta aan samaystay inaad samaysatid hadda intaana soo hoqday inta waxaa igu jiro vaselinti intaan kusoo shubayaa beetrootka aan soo hoqday beetroot ani beetroot lay u aqaanaa af soomaali haddaad ku taqaanid commenta igu soo qor iyo faa'iiday insha allah waan ku miirayaa biyaha u baahan nahay waan soo miirayaa asxaabteyda biyo kuma darin asiga la rabaa inaan miiro xoog inaan u miirtid waaye galaaska ku riixaya hadda soo ma aragtaan hoos saas ugu soo baxaya kusoo miiray beetrootka biyihiisa intana kana vaselinti waaye waa isku soo qasaya si fiican isku garaacaya waa isku soo laabanaya insha Allah asxaabteyda saliid diyaar waaye basasha way noo bislaatay markay basasha saas u shiilanto oo brown ay noqoto waxaa ka daminaysaa marka nafaqada aan uga baahneed saliidda ku baxay marka hala soo qabowdo weel ha qabowdo markay qabowdo weel aan ku shubanaya aniga tii kala soo dhamaystiraya waa isku soo laabanayna insha Allah asxaabteyda weli waa isdhexgelinayaa vaselinta iyo beetrootka biyihiisa markaa soo dhameeyo aan si fiican isu soo dhexgeliyo aan isu soo laabanayna insha Allah asxaabteyda diyaar waaye waa soo samaysane lipsticki adi wax badan haddaa rabtid samaysa laakiin ani inta kastaa yariskaa samaysanaya waxaan kusoo shubanayaa weelkaan ku shubanaya dhalada yarka asxaabteyda waa kan diyaar waaye ani dhalada yarka ku shubtay waa kaasaa afka markuu ku qalalo waa kaasaa gacanteyda idinku tusaaya waa kaasaa saas u marsanaysaa maasha Allah tabaaraka raxmaan maxaa la dhahaa kalar yaroo degan uu leeyahay sidii lipstick oo roosetado kale ma ahan oo gaduud zaa'id ma ahan kan wuxuu leeyahay kalar yar afkan haddii uu qaleel ku yahay wax tahab iyo wax kaa saaran wuu ku saacideynaya wuu ku caawinaya inkastoo vaselinta beryaan laga deeray oo la dhahaa maxaa la dhahaa afka lama marsan karo laakiin aniga iska marsadaa sana u samaystaa haddii aad jecleen dadka lipstick jecel aad ahayn saan u samaysa insha Allah ka faa'iideyso afka markuu ku qalalo kale taxab ama wax qolfo kaa koro waa marsanaysaa kalar yacni oo dadka kugu fahmayna ma ahan oo gaduud zaa'id ma ahan kalar yaroo degan waaye afkaagana waa ku qoyayaa bishimaha markay ku qalalaan oo kale tartiib wax yaraa marsanaysaa ka faa'iideysta walaalaheena qaaliga ah maxaa la dhahaa saliidaan hadda miiraynaa saliidda waxaan kusoo miirayaa intaan kusoo miiraa saliidaan soo miirayaa asxaabteeda qashinka waxyaalahaas ka reebayaa basasha iyo liinta qolofteeda ka reebayaa basasha shiiraysa carafaan ku dhahay saliid dhan way caraftay maasha Allah tabaaraka raxmaan liinta qolofteeda waxay ka dhigaysaa caraf liinta macaan bes ma ahan liintan macaan bes ma ahan inaad isticmaashid qas ma ahan liin dhanaanta waa isticmaali kartaa liin bambeelada caadiga waa isticmaali kartaa liin kastoo aa heshid qolofteeda isticmaalaysaa oo ku carfinaysaa saliidda carfis le waaye wax kaloo gooni ku qabanayso carfiskaasaan ka rabnaa qolofta marka faa'iideysta ani weel dabool lahaan ku shubanayaa saliidda dhalo ama caag ama wixii markaas oo weel xirmaayo ku shubo isla waa la dhiganaysaa maasha Allah ka faa'iideysta walaalahay qaaliga saliidda haddii timaha ay ku daadanayso ku caawinaya timaha hadday ku daadanayaan ku caawinaya haddii kaa jajabayaan sidoo kale maasha Allah ka faa'iideysta geediyaan ahay sida idin sheegay safaraan gali rabaa mar dhow Nairobi aan u socdaa insha Allah markii aan tago aan degno insha Allah video idin soo duuba hadaa inta joog aan waqti aan helo aan video idin kugu soo duuba aan helan waa idin soo duubi doonaa haddii aan waqti aan waayin iga raali ahaada maalmahan video ma idin soo gelin haddana haddii aan waqti helo waa idin soo gelinaya haddii aan helinna markaan Nairobi tagno oo aan degno aan idin soo duuba insha Allah oo safarka laga dhamaado
إن شاء الله هدك فائدة ولا لي قالي. السلام عليكم.